hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiid soolteelko waxa uu shaaca ka qaaday in go'aan kaga yimid madaxweynaha Somaliland awgeed uu uga tanaasulay jagada maayirnimo oo uu mar labaad u tartamayay tala soo jeedintii madaxweynaha ka bacdi waxaan ku qancay inaan ka noqdo hankaygii ahaa inaan u tartamo maayirka caasimadda taas oo leeyahay xildhibaanadana aad baa u mahadsantihiin aad baa u mahadsantihiin waxaa kaloo aan u mahad celinayaa madaxweynahayga tallaabada ay soo jeediyey intii uu hadalkiisa sii watay maayir soolteelko waxa uu soo hadal qaaday saaxiibkiisii hirdanka culus ay ugu wada jireen jagada maayirnimo ee cabdikariin axmed mooge waxaan halkan uga hambaliyeynayaa saaxiibkay cabdikariin axmed mooge oo ah ninka aan uga tanaasulay inuu noqdo maayirka caasimadda runtii waan ogahay taageerayaashayda way ku adag tahay mudday soo xarbiyeen laakiinse kursigu laba uma qaybsamo kursigu qofunbaa ku fadhiistaa haddii aan laysu hanayna waxay noqotaa foolxumo taa si ayna u dhicin waxa aan ku qanacsanahay inaan walaalkay cabdikariin axmed mooge oon muddo 30 sano ka badan aanu saaxiib ahayn aan uga tanaasulo cabdikariin colaadinagamay dhaxayn waxa weeye tartanka kursiga anna aan ku fadhiyey isna uu doonayay inuu soo fuulo uunbuu ahaa tartanka naga dhexeeyey cabdikariin axmed mooge waa shakhsiyad aad u wanaagsan aanan aaminsanahay inuu hanan karayo kursigaasi waxaan leeyahay cabdikariin axmed mooge wuxuu wax ku noqonayaa filashada badaneed ka filaysaan iyo ballanqaadku sameeyey shacbigu hadduu cashuurta bixiyo dhinaca kale cabdiraxmaan soolteelko waxa uu si gaara ula hadlay dhibaanadii sida weyn u taabacsanaa intii uu hirdanka ugu jiray jagadani uu maanta ka tanaasulay waxaan leeyahay taageerayaashaydii inay saa ku qancaan saaxiibada xildhibaanadana waxaan leeyahay inaynu 17 bisha cabdikariin u wada cumaamadno u caleema saarno inuu maayirka noqdo magaalada anugu ka tegi maayo golahayga waan golahayga dhex fadhiyaa odaygii magaalada iyo maayirkoogii oo noqonaya sidaasaanan insha Allah tacaala ku dhex joogaya dhinaca kale soolteelko waxa uu meesha ka saaray wararka sheegaya in uu iskaga tagayo xisbiga uu ka tirsan yahay ee kulmiye xisbigayga kulmiye dadka qaar baa propaganda sameeynaya oo ka tagaya xisbigayga kama tagayo xisbigaygu waa kaan ku bilaabay waa kaan ku shaqayn doono waa kaan mustaqbalkana ka rajaynaya inaan shaqo ka badan aan xisbiga ka qabto haddii Ilaahay yiraahdo Badri Koosaar Maxamuud telefishinka Sahan Hargeysa.